shirka jaraa'idka galabta waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed meel kasta dunida ka joogaan dalka gudihiisa iyo dawladdiisaba iyo magaaladaba aan kula wadaago saddex markaan dhameeyo sidii caadada inoo ahayd su'aaluhu way inoo furan yihiin ilaa ay su'aalaha ka dheeragtaanna halkan kama tegto intaa kadib saddex arrimood aan ka hadlaya baan sheegaya kow go'aamo cusub oo ka soo baxay arrimihii COVID-19-ka labo arrinta doorashada iyo shirka dhici doona ee madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladda xubnaha ka dowladda federaalka ee dhawaan furin doona iyo halka qabanqaabadiisa marayso iyo qodobka saddexaad oo ah kiiskii badda ee ka socday maxkamadda cadaaladda dunida ee Hague iyo ilaa hadda sidii procedure-ka iyo warshada soo gabagaboobay idinkana aan idinka yara brief garayaan haddaan ku horeeyo go'aamada ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan guddida qaabilsan arrimaha coronavirus ee COVID-19 markii aan dhageysanay khubarada iyo aqoon-yahanka iyo sayniska iyo dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka intuba waxa ay sheegeen inkastoo aad loo dadaalay aad loo shaqeeyey lagu dadaalay afxirka iyo kala fogaanta iyo wasaaradihii iyo hay'adihii dowladda fasax galay iyo iskuulladii iyo jaamacadihii iyo madrasadihii go'aamadii hore qaatay haddana in khatartii coronavirus leeyahay haddii khatartii weli jirto macnaheedu waxa weeye inaynaan odhan karin intaan 3 usbuuc dalka xidhnay haddana ha isu soo baxo dabadeedna xanuunkii mar labaad dib u soo laabto sidaa darteed dowladdu waxay xoojinaysaa go'aamadii hore uga soo baxay 2 Maarso 3 Maarso ee ahaa in lagu dhaqmo si loo badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed waa ogtihiin sida uu inoo saameeyey hadday caasimadda tahay iyo hadday isteediyada tahayba sida uu inoo saameeyey corona waxaan rabnaa in lagu dhaqmo go'aamadii hore ee ahaa in la kala fogaado ahaa in la kala durko ahaa in afka la xidho ahaa in qof waliba halkiisa xil isku saaro goobaha shaqadu sidii bay sii ahaan doonaan hay'adaha dowladda iyo wasaaradaha iyo goobaha la isugu yimaado sidoodii bay usii ahaan doonaan ay ku sii jiri doonaan fasax 2 usbuuc sidoo kale waxaa la rabaa waxayna soo gaaray tallaalkii iskuullada iyo jaamacadaha iyo madrasadaha macallimiintooda saddexdaba waxaa la farayaa 2 usbuuc inay isku tallaalaan iyagoo iska tallaali doona isteedyada iyo 17 degmo ee gobolka Banaadir waxaa la diyaariyey gobolka Banaadir oo keliya 9 meelood oo tallaalku ka socdo 2 usbuuc in la isku tallaalo si loo badbaadiyo nafo badan oo aynu jecel lahayn oo aynaan rabin inay culimada waxaa mar kale lagu celinayaa masaajidadu inay u hoggaansamaan awaamirta dowladda kala fogaanta afsaarka wayse qaadashada oo qof walba gurigiisa kusoo wayse qaadanayo in la ilaaliyo saluu birrixaalikum si nafa loo badbaadiyo dadku in ay kala fogaan ku tukadaan haddii ay lagama maarmaan noqotana guryahooda ku tukadaan in ciidamada amnigu ay gutaan waajibaadkooda oo ay fuliyaan awaamirta ka soo baxday xukuumadda ciddii u hoggaansami weydana ay tallaabo sharciya ciidamada amniga waxaa la farayaa in ay go'aamada fulintooda iyagu xil saareen waan adkaynaynaa sababtoo ah waxaan rabnaa in xanuunkii oo weli inagu dhex jira in aynu xakamayno oo aan yarayno oo sidaa aynagu dhaafay lahayn sidaa darteed si aan uga gudubno waa inaan adkaysano 2 usbuuc dhammaan wasaaradaha ay khusayso arrimahan waxaa la farayaa iyaguna inay qaybahooda ka fuliyaan hadday isteediyada tahay iyo hadday gobolka Banaadir tahay iyo hadday wasaaradaha federaalka tahay hoteelada maqaaxiyaha madrasadaha jaamacadaha garoomada diyaaradda shirkadaha برايفت كا دمانتود
waxaa la faraya iyaguna inay ilaaliyaan kala fogaanta iyo inay dadku guryahooda kusoo shaqeeyaan. intaasi waa go'aamada COVID-19 waxaan la rajayn doonaa in loo hoggaansamo 2 usbuuc insha Allah. waxaan rajaynaynaa 2 usbuuc kadib wax badan inoo fududaan doonaan, inagana fududaan doonaan, xanuunkuna sidii dabaysha uu ina dhaafi doono ilaahay ha joogo. intaa kadib waxaan u gudbayaa qodobka labaad si aan u soo koobo oo ay su'aaluhu inoogu fududaan. qodobka labaad waxa weeye doorashada. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xalayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka in la isugu yimaado shir 22 bisha Maarso oo ku beegan Isniinta. shirku wuxuu ka dhici doonaa Afisiyoni Center, xarunta Afisiyoni oo ay leeyihiin ciidamada markay Soomaaliya. xarunta Afisiyoni Center ayaa loo diyaariyey, waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku howlan xafiiska ra'iisul wasaaraha. waxaan rajaynaynaa inaan dalkani oo inoo ajenda noqon doonta 3 kelmadood oo ah doorasho, doorasho, doorasho. waxaan runtii aad uga xunnahay iyadoo dalku doorasho aadayo in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan inay sameeyaan isbahaysiyadaas oo ah doorasho la dir. isbahaysiyada doorasho la dagaalanka ama doorasho diidkaahi waxay inagu celinayaan jid qaldan iyo jid dib u dhac. waxaynu ka soo gudubnay caqabado badan. caqabadahaynu ka soo gudubnayna waa tan hadda guusheeda ay muuqato ee ah dalkeedii maanta in loo arkayo dal ka soo baxay burburkii iyo jabkii iyo qaranjabkii oo u soo gudbaya dal dhisan oo hay-adihiisi ay wada dhisan yihiin dastuurigaha intaynoo dhimanna oo inoo dhammaystirmi doonto. haddii aan halkaa ku nuuxnuuxsado, dowladdu waxay diyaar u tahay in sida ugu dhaqsaa badan doorasho loo sida ugu dhaqsaa badan 17 September heshiiskii waan haysanaa, 2 aqal ansixiyeen, 16 February guddidii farsamadana waan haysanaa. waxaan rajaynaynaa in wixii ka dhiman la dhammaystiro. guddida farsamada anugaan guddoomiye u ahaa, waxaanu soo qorshaynay ajendaha shirka. wuxuu socon doonaa 2 maalmood, Isniinta iyo Talaadada. 2 maalmoodna waxay noqon doonaan in lagu ayido oo lagaga wada hadlo sida loo dardargelin lahaa, loo ayidi lahaa 17 September iyo 16 February, iyo madaxdu inay wada hadlaan oo ay sidii dalkani doorasho waadi lahaa oo wada hadlaan. waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay dowladda ku kaalmeeyaan ducada iyo taageerada si aynu dalkani u noqdo dal qani ah oo shidaal leh oo barwaaqo ah oo maantaba soo dhacsaday oo xorriyadiisii iyo madaxbannaanidiisii ay meel fiican noqoto. dowladdu waxay diyaar u tahay wherever meel kasta ha ahaato, xataa haddii la yidhahdo badda dhexdeeda kaale badda dhexdeeda waa imanaynaa si dalku doorasho waayo. haddii la yidhahdo badda dhexdeeda ha lagu shiro, waxaan diyaar u nahay si dalku doorasho waado inaanu nimo doorasho, doorasho, doorasho. waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo shirkayga jaraa'id kiiskii Hague. waa taqaaniin kiis maxkamad ku jira lagama hadlo sababtoo ah waa maxkamad, waa garna 2 qof kama wada qasbiso, kama hadlayo. laakiin waxaan ka hadlayaa shalay warqad ka soo baxday dowladda aan jaarka nahay ee dariska nahay Kenya. warqaddu runtii waxay ahayd warqad aan ka turjumaynin ilbaxnimada dowladda. kiiska la isku hayo iyo waxa warqadda ku qornaa Ismaaciil ahay. waxaan xasuustay markaan warqadda akhrinayay iyo sida ay uga qaadatay maxkamadda uga baaqatay dowladda Kenya. nin odaya
weynaaday oo cimriyey ayaa wuxuu arkay nin dhalinyaro ah oo tacab ku jiro oo beer falayo oo markaa gabadh qurux badan oo na u doonan tahay marka wuxuu rabay inuu gabadha ka qaado gabadhii weli ma guursano dee gabadh buu rabay inuu ka qaado markaa si uu isu muujiyo in dhaqaalena haysta yahay nin indhabeel baa la odhan jira indho wallow ahaa indhihiisuna fiiqan yihiin gamuun buu geed ku soo taagay ama fallaad geedkii ku soo taagay ayuu wuxuu ku yidhi gabadhiisu uu isaga dhaadhiciyo inuu khatar yahay geedkaas waxa guntiisa ku taagan ma gamuun ku jabay baa ma fallaad ku ganan baa ma atoor gadoodaa geesii mid kaga tegay bal geedkaa waxa ku yaalla sheeg dadkii waa isku yimaadeen oo geedka halkaa ku yaalla yaa garanaya waxa ku yaalla isagaa ku soo muday moogta dabadeedna ina keena buu yidhi tusayaa inuu in khatara yahay oo dafiiqaan wax kasta arkay intii ay sii socdeen baa soo intuu ka soo maqnaa hal geel ah baa geedkii iyo dadka dhexdoodii fadhiisatay gebgebtii iyo iswaalkii wuxuu guudka kaga dhacay hal fadhida gelgelisha oo ka sokaysa geedka sokadiisii hal weyn oo fadhida iyo dusha kaga dhacay ninkii lahaa gamuun geed ku yaallaan arka horta qoladii Kenya intaan maxkamadiiba la gaarin waxay ku dhex dhaceen jidka dhexdiisa way tegi waayeen maxkamadii hadallada elqaafa way ku tuureen innagu maxkamadda waa taageersannahay go-aankeedana waa taageersannahay wixii ka sababtay markaad kiiskaaga maxkamad geysato waa inaad aqbasho laakiin walaaladeen waxay diideen cadaaladii waxay diideen maxkamadda caalamiga ahayd waxay ku doodeen in maxkamaddu aanay tixgelin 2009 heshiiskii dhacay warqadoodii shalay waa wada aqrideen qodobka saddexaad waxay dhahdeen maxkamaddu ma tixgelin MOU-gii 2009 dhacay oo ay ahayd inaanu bannaanka ku heshay ay Soomaaliya aqbashay Soomaaliya ma aqbalin 2009 golaha shacabku yanana masli aqlabiyad bay ku diideen MOU aqlabiyad bay ku diideen heshiiska sidaa darteed waxaan u sheegaynaa dowladda Kenya Soomaaliya inaanay marna aqbalin heshiiska ay ku doodayaan ay leeyihiin maxkamadda ma tixgelin marka noo eego qodobkooda sax waxay nagu tilmaameen expansionist dad raba inay Kenya qabsadaan mid dad raba inay weeraraan mid waxaanu nahay dowlad nabadeed dal nabadeed dal jecel darsineed laakiin haddaanan intaa jeclayn maxkamadda ma aqbalin peacefully and according to justice in cadaalad iyo qaynuun lagu kala qabo waa anigeedu ku lahaa ilbaxnimadu waxay ku jirtaa sharciga oo lagu kala waxay yidhahdeen annagu diyaar man warqadooda saasaan ku qornay annagoo diyaar ahayn baa nala qaaday qodobka 14aad 2015 hadda marayno 6 sannadood waxaa lagu diyaarin waayey ma aqaan waxa lagu diyaarinaya 6 years haddaad ku diyaar garoobi waxaasoo dhan waxaanu arkaynaa dad aan cadaalad qabin laakiin annagu cadaalad baan rabnaa derisnimo wanaag baan rabnaa nabad baan rabnaa waxaan rabnaa in lagu kala baxo sharciga waxaananu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka iyo go-aankeeda waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan rabaa halkan inaan uga diro salaan hambalyo iyo mahadnaq tiimkii difaacayay baddeenna ee joogay heeg ee hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed looyaradiis iyo xubnihii dowladda ka socday ee ka qayb galay ee aan nasan habeen iyo maalin ee soo jeeday ee u soo jeeday dhacsashada xuquuqda Soomaaliya aad iyo aad baa u mahadsantihiin